waxaa farxad inoo ah maanta dowladda Soomaaliya waan wakiil uga ahayn halkan inuu noogu qabsoomay shir midhodhal ah shirkaas oo aanu la lahayn dowladda Mareykanka oo ay matalaysay safaaradda Mareykanka kusimaha safiirka Justin Devil waxyaabaha aan ka wada hadalna waxaa ka mid ahaa sidii aan uga wada faa'iideysan lahayn kheyraadkeena. Sorry, I can't do that. sidii aynu uga faa'iideysan lahayn haddaan Soomaali nahay maalgashadayaasha Mareykanka xaqiiqatan waxaan isla soo qaadanay qodobo muhiim ah in lagu dhiirigeliyo maalgashadayaasha Mareykanka inay maalgashadaan Soomaaliya lagana wada shaqeeyo sidii loogu gudbin lahaa fursadaha ka jira dalka ee la xiriira macdanta iyo hydrocarbonka ama shidaalka. waxaa kulan aad u wanaagsan waxaana loo ballamay kulamo badan oo kale oo technical ah oo ay ka wada shaqeyn doonaan wasaaradda batroolka iyo kheyraadka macdanta, wasaaradda ganacsiga iyo technical committee ka socda safaaradda Mareykanka kuwaasoo si dhow iskula shaqeyn doono si ay u helaan ka faa'iideysi loo dhan yahay ee kheyraadka dalka ah. shirkan wuxuu ahaa kii ugu horreeyay noociisa oo ka qabsooma magaaladan Muqdisho wuxuuna ahaa mid aad dhiirigelin u leh Soomaaliyana waxay u ahayd fursad weyn ay ku soo bandhigtay sida ay ugu diyaarsan tahay haddii ay lahayd siyaasadihii ay dejiday, haddii ay lahayd kheyraadkeeda heerka uu marayo iyo u diyaargarowga ka faa'iideysigeeda wejiga labaad ee macdanta Soomaaliya. Mareykanku wuxuu muujiyey xaqiiqatan kalsooni weyn, wuxuu muujiyey inuu u soo jeedo markaan inuu ka faa'iideysto yacni maalgelin ku sameeyo kambaniyadiisu yacni kheyraadka Soomaaliya sida ka warqabtaan dowladda Mareykanka iyadoo wax maalgeliyay kambaniyada Mareykanka ayaga oo madax bannaan wax geliyaan laakiin Soomaaliya iyo Ameerika ay ka wada shaqeeyaan sidii ay u sameyn lahaayeen jawi dhiirigelinaya in maalgashi Mareykanka uu ka dhaca Soomaaliya. intaasaan ku soo koobaya. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuh.